Hortii Dickson oo yimid gurigii, maamadii ayaa bilowday xilligaas warka inay ku dhirto waxayna ku tiri, wiilkaygiiyo xaqiiqadan kuu sheego, horta gabadhan Raxmo la yidhaahdo waa gabadh hore loo soo furay, tan kale aniga ma aana dhalin oo walaashay ayaa dhashay. Gurigaasna waxa loogu soo kaxeeyey waxa ay tahay gabadhani inay wiilasha iyo weliba nimanka ay ka daba ordo. Marka waxaan doonayaa inay xaqiiqda kuu sheego wiilkaygiiyow, waxaana doonayaa wax walba inay bannaanka imaadaan. Soo dhawaada saaxiibayaal, walaalkiina barqado maanta inay wada qeyso aad u xanuun badan. Ka horse intaana bilaabin naga hubi inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe aan gudaha u galno. bilowga sheekadeenna waxa ay ku bilaabanaysay xaafad yar oo ku taalla Gaana. Waxaa ku noolay laba gabdhood oo walaala ah. labadaasi gabdhood walaalaha waalidiintooda waxa ay dhinteen iyagoo yaryar, waxaana lagu kala magacaabi jiray labadaas gabdhood Rihanna iyo weliba Salwa. Rihanna waxay ka weyneed walaasheeda, inkastoo aysan waalidiin haysan, iyada ayaa mar walba garabka u ridata si ay walaasheedu garab istaagi lahayd. Sidaas oo kale iskuul ayay u dirtay walaasheeda Salwa, halka iyada inta badan ay ka shaqayn jirta xaafadaha si ay u bixisa lacagta iskuulka laga rabo iyo weliba nolol maalmeedka. Waxayna ka shaqayn jirtay shaqooyin kala duwan sida dadka inay biyo u soo aroorto, sidaas oo kalena dharka ay u dhaqdo. waxayna sidaas uga samayn jirtay xoogaa lacaga, taasoo ay nolosheeda iyo weliba tan walaasheeda ay ku maarayso. sannada markay ka soo wareegteen, Salwa waxa ay dhammaysay waxbarashadii. walaasheed arrinkaasi aad bay ugu farxday, sidaas oo kale shaqo waxay ka heshay magaalada Accra. maalin ayayna walaasheed waxay ku tiri, walaasheediyo waan kugu faanayaa sababtoo heerkaa gaartay. kadibna Salwa waxay tidhi, maya walaashay, ma ogtahay heerkan in adiga gaarsiisay, adiga la'aantaana maanta heerkan sooma gaareen. marka lagama yaabo inaan ku helo walaashay, waana kula soo xiriiri doonaa. labadii gabdhoodna sidaas ayay ku kala tageen. Rihanna waxa ay ku hadtay magaaladii yareed, halkaas ayayna ku guursatay. waxayna dhashay gabar aad u qurux badan taasoo lagu magacaabayay Raxma, halka walaasheeda Salwa iyadana ay ku nooshahay magaalada Accra. waa ay guursatay waxayna dhashay gabar kale oo iyadana lagu magacaabo Abigail, waxayna ku nooleed nolol aad u qurux badan. Salwa inkastoo ay ku jirtay noloshaas aad u qurux badan, haddaba marna uma aysan ilmaamin walaasheeda, waxayna ka caawin jirtay dhankaas maaliyadda. Rihanna inkastoo iyada caawimaad walaasheed ay u samayn jirtay, haba yaraatee marnaba kama aysan caba jirin, sababtaa walaasheed aad bay u jecleed. waxayna diiday labadooda inuu qalad uu soo dhex galo. si kastaba ha ahaatee, sannada markii ka soo wareegatay, Raxma waxa ay dhammaysay dugsigii sare, micnaha gabadhii Rihanna ay dhashay. laakiin maalmahaasi waxaa dhacay arrin aad looga murugooday. arrinkaasna wax kale ma uusan ahayn, waxaa dhintay Rihanna ninkeedii. kadibna waxay ogaatay dhammaan shaqooyinka dhinaceeda dusha ay ka soo fuuleen. sidaasoo kale way ogaed qiimaha ay leedahay waxbarashada, waxayna go'aan ku gaartay gabadheeda inay caawiso. si kastaba ha ahaatee, waxayna u shaqaynaysay si adag, inkastoo aysan bixi karin lacagaha ku baxaya gabadheeda. waxay go'aan ku gaartay arrinkani inay la wadaagto walaasheeda si ay arrinkaas uga caawiso, sababtoo ah Rihanna ma bixi karto qarashka gabadheedii jaamacadda ku galayso. sidaa darteedna go'aan waxay ku gaartay walaasheed inay caawimaad weydiisato si ay uga caawiso. habeen ayayna la soo xiriirtay, waxayna tiri, Salwa waxaan rajeynaya inaad fiican tahay, waxaan doonayaa inaan hal arrin kaa codsado. arrinkaasna waxay tahay aniga maadaama aana shaqay karin oo iska yara xanuunsanahay, gabadheedan aan u baahanahay inay jaamacadda sii wato, waxaan kaaga baahanahay inaan usoo diro halkaasi magaalada Accra si aad adiga waxbarashada uga caawidid. kadibna walaasheed waxay ku tiri, walaasheediyo waan ku faraxsanahay, arrinkaasna waan kaa caawinayaa, sababtoo waan ogahay qiimaha daagteeda ku leedahay. jaamacaddana halkan ayay ka bilaabaysa, arrinkaasna ka welwelin, keliya ayada ii soo dir. markay Rihanna arrinkaas maqashana aad bay ugu faraxday, waxayna tiri, aad baan kaaga mahadcelinayaa. ilinta ayayna cesho weysa. kadibna Salwa waxay ku tiri walaasheedii, maya sidaas maahan, sababta waan ogahay sidaad naftaada igu soo hurtay, marka maxaa diiday inaan sidaasoo kale gabadhaada nafta u huro. ha ka welwelin, waxay ku noolaanaysaa nolol aad u qurux badan, waxbarashadeedana halkan ayay ka wadaysaa, wax walbana aniga ayaa ka bixinaya. Rihanna mar kale ayayna walaasheed u mahad celisay, waxayna tiri, adiga waxaad tahay qof qiimo leh. teda kale waxaa laga yaabaa inaa isweydiinaysa Salwa maxay ka shaqaysaa. Salwa waxay maamulo ka tahay bangi weyn oo ku yaala magaalada Accra, marka iyada wax dhiba kuma aha in loo keeno gabadhan yarta Raxma markii uu hadalkaasi gaaro way aamini weysay, waxayna tiri, waaw, nolosheeda quruxda badan hadda ayay bilaabatay, waxbarashadeena waxaan kasii dhammaystiranayaa halkaas magaalada Accra. weliba waxay dareemaysay farxad saa'ida. 2 asbuuc markay ka soo wareegatana, Salwa waxa ay timid xaafad yareed ay ku nooleed walaasheeda Rihanna iyo gabadheeda. goortii halkaasi timidna waxay ku aragtay walaasheeda, waxayna doonaysay inay gabadha yarta ay ka soo qaadda si ay u geysa magaalada Accra. goortii halkaasi ku aragtay ayay hab ku siisay, waxayna tiri, walaasheeda
walaashaydiyey waan ku xiisay weliba xiisitaan aan la qiyaasi karin waxayna tiri teeda kale ha ka welwelin gabadhan yarta waxay kuu soo laaban doontaa iyadoo aqoon-yahanada wax walbana soo baratay aniga ayaana mar walba garabkeeda taagan walaasheeda rihanan markii intaasi maqasho aad bay ugu farxday walaasheedayna halkaas hab ku siisay waxayna tiri walaasheed lagama yaabo inaan ku ilmaamo isla maalinkaasna waa ay soo baxeen waxay dib ugu soo laabteen magaalada Accra goortii la keenay gabadhii yareed ee Raxma waxay la yaabtay magaalada siday u horumarsanta u qurux badan tahay dabaqyada dhaadheer ee ka taagan wadooyinka aad ku mashquulka baabuurta isgoynayso iyo waliba tiknoolajiyada aad ku horumartay waxayna tiri wow hadda waxaan noloshii aad ku qurux badnad aan ku riyoonayay waxayna sidaas oo kale gurigii markii la keenay kula kulantay gabadhii yarta ahayd ee Abigail waxayna ahayd gabadha Abigail gabadh yar oo aad u qurux badan waxayna tiri walaasheedii gurigaan ku soo dhawow ha ka cabsan magaalada aniga ayaa ku kala baraya wax walba ugu baahantiina aniga ayaa mar walba garabkaada taagan Raxma markii hadalkaasi maqashay aad bay ugu faraxday walaasheedna way uga mahad celisay waxayna la yaabtay noloshan quruxda badan ay ku nool yihiin sababtoo ayada meesha ay ka timid kadib markii aabaheeda dhintay nolosha aad bay ugu adkaatay iyada iyo waliba hooyadeeda Raxma gurigaan ay ku soo degtay waxaa ka shaqaynaysay gabar shaqaalaha mana jirin shaqooyin badan oo guriga laga dhex qabanayo Raxma xilligan ay magaalada imaanaysay iskuullada iyo waliba jaamacaduhu waa ay wada hirnaayeen mana aysan jirin iskuulla furan sababta fasax ayay ku jireen sidaas oo kale Raxma waxay ahayd gabar degan oo naxariis badan dadkana xushumaysa sidaas oo kale walaasheed ayayna waqti la qaadan jirtay iyada ayaana magaalada kala bari jirtay sidaas oo kale xitaa waxa ay caawo jirtay gabadha shaqaalaha ah hawsha ayayna dhinac uga qaban jirtay mar walbana ma aysan ahayn gabar guriga iska joogta sababta gabadhan uma aysan baran gumeel iska fadhiisiyo waxayna aad u taqaynay shaqada guriga sidaas oo kale ninka qaba Salwa kaasoo lagu magacaabayo Sam wuxuu arkay gabadhani habeen ayuun wuxuu ku arkay iyadoo caawinaysa gabadha shaqaalaha jikadana ku jirta kadibna wuu la hadlay wuxuuna yiri wow adiga waxaad tahay dayax soo baxaya iftiinkiisuna iftiimiyey adduunka oo dhan sababtaa sida aad shaqada u qabanaysid waxaana tahay gabar aad u fiican howlkar u ah sidaas oo kale Sam wuxuu ogaaday gabadhiisa inay taas cagsi ay ku tahay macnaha waxaan ka hadlayaa Abigail waa gabar caajisley ah sidaas oo kale dadka ma xushumayso wuxuuna inta badan dhihi jiray gabadhiisa gabadhaydii waa inaad barataa halka cuntada loo kariyo weliba waa inaad ka barataa Raxma sababtoo wax badan ayay taqaanaa howlahana aad bay u taqaanaa marka waa inaad ka barataa gabadhaydii ka kacna meesha dabeecad wanaagsanna baro intaa kadib uu la hadlay gabadhiisa Abigail wuxuu u tagay xaaskiisa wuxuuna ku yiri xaaskaygii waxaan doonayaa arrin muhiim inaan kala hadlo arrinkaas oo ku saabsan gabadheena waliba gabadheena Abigail wax kale ma ahan gabadheena hadka ayaan ka bixinay nolosheedana haddii aan sidaan wax ka bedelin wax badan ayaa mustaqbalkeeda saameyn ku yeelan doontaa waliba markay guursato waad ogtahay gabadheena waa caajisley gurigana waxba kama qabato waan ku baryaan dhiirigelino una sheegno inay Raxmo wax ka barato waad ogtahay Raxmo waa gabar qiimo badan sidaas oo kale cuntadana ku fiican sidaas oo kalena gabadh dadka xushumaysa markaan dhahna gabadhaasi wax ka baro Salwa markii hadalkaasi maqashay waxay tiri okay dhimala waan la hadlayaa inkastoo ay dareentay dhaawac istiri gabadhaada adiga ayaa sidaas u keenay kadibna qolkeeda ay iska aaday Salwa isla markiiba waxay bilowday in arrinkii ninkeeda u sheegay ay ka fekerto waxayna tiri gabadheeda aniga ayaa dayacay waxaana ma ana barin laakiin hadda wixii ka dambeeyay aniga ayaa ka taxadaraya si aan wax ka bedeli doona maalin maalmaha kamida sida caadada iyadoo banaan ku soo baxaysa ayay waxay aragtay Raxma oo banaanka xaqaysa waliba caawinaysa gabadha shaqaalaha kadibna qayla ay isugu dartay waxayna tiri hey Raxma maxaa kugu dhacay maxaa ka qaldan kaalay adiga guriga maxaa lagu keenay ma shaqaale ayaa ka tahay mise waxaa lagu keenay inaad waxbarashada aad ka sii wadatid oo ka dhammaystiratid bax guriga gudaha u gal ka hor intaana kugu dhufan dharbaxsho xanuun badan waliba maamada aad bay u qaylinaysay isla markaasna waxay soo xasuustay hadalkii ninkeeda uu kala hadlayay habeenkii la soo dhaafay taasoo ugu sheegayay gabadhaas inay tahay gabar shaqada aad ugu fiican arrinkiina iyadu wuxuu u sii horseeday inay gabadha xanaaq ay u qaado weliba cadaawad aan ka soo jeedsan lahayn waxayna bilowday si xun inay ula dhaqanto waxayna tiri bax guriga ugu laabo sidaasoo kale Raxma goortii hadalkaasi maqashay ord ayay isku taabatay qolka ayayna dib ugu laabatay waliba iyadoo dhaawac dareemaysa waa ayna la yaabtay waxayna tiri kaalay aniga maxaa wax qaldan maan sameeyey kaliya waxaan doonayay gabadhaas miskiinta inaan caawiyo eeday maxaysaanan iigu xanaaqaysaa
sidaasoo kale Sam wuxuu maqalay qaylada bannaan ka socota. Goortii uu xaaskiisa soo gaarana wuxuu ku yidhi xaaskaygii maxaa kugu dhacay? Adduunyada waa la iscaawiyaa, gacmana wadajir ayay wax ku qabtaan. Marka ka leex gabadha, haddii caawinaysana waa gabar fiican. Kadib wuu iska tegey, laakiin marka uu saas u tegey ayay waxay Salwa ku soo jeestay Raxma, waxayna ku tiri haddaan kugu arko howl kaloo adiga qabanaya wixii kugu dhacday ayaa isku dhigay. Sidaasoo kale haddii mar kale aan kugu arko gurigan oo maalintii kugu dambaysay. Goortay sidaasi aragtay Raxma, waxay bilowday inay bariso eedadeeda, waxayna ku tiri hawar macaan sorry, aad baan uga xumahay, waana kaa raaligelinayaa waxa aan sameeyey. Aniga muhiimaddeeda ma ahayn gurigii inaan dhibaato aan ka abuuro, keliya waxaan arrinkaas u sameynaya inaan caawiyo, laakiin waxaan ballan kaa qaadayaa ma dambaynaysan saan soo laaban doonin. Salwa raaligelintaasi la siiyey waa ay ka soo horjeestay, waxayna tiri ka hor intaan rabaxsho kugu dhufan horteeda ka tag, weliba iyadoo aad u caraysan. Raxma aad bay murugo saayida u dareentay, waxayna tiri kaalay aniga maxaan eedaday ka galabsaday, qaladka aan ka galana maxay tahay? Sidaasoo kale xilligii la gaaray jaamacadaha oo waxbarashadii ay furantay ayay waxay u timid habaryarteed, waxayna ku tiri hawar macaan waxbarashadii waa la gaaray ma jaamacaddii ka bixisid. Laakiin habaryartii oo u haysay cadaawad saayida waxay ku tiri gabadheedii aad baan uga xumahay, sababta hadda aniga wax lacaga ma hayo, jaamacaduhuna aad bay u qaalisan yihiin. Marka waan ku baryayaa waa inaad si fiican u shaqaysaa, weliba meel waxaan ku geynayaa laga shaqaynayo, meesha ayaadna lacag badan ka helaysaa, kadibna waxbarashada ayaan ku geynayaa. Waxayna bilowday gabadhi inay geyso meel dhar lagu dhaqo, weliba aad looga shaqaynayo. Subaxii ayaynu diri jirtay, galabtii ayayna ka soo heli jirtay, lacagtana iyada ayaa ka qaadan jirtay. Gabadhiina waxay u qaaday cadaawad saayida. Sidaasoo kale waxay u bilowday inay uga shaqayso si xun, gurigana shaqaale ayayba uga dhigtay. Meelaha qaar markay tirtirto waxay leeyi jirtay meeshani waa wasaq oo mar kale ku soo laabo, weliba iyada ayay ku dhibaysay. Waxayna sidaasoo kale diidaneen gabadha inay dib ugu celiso walaasheeda, waxayna isdhehaysa amay dhibaato weyn kaa soo gaartaa. Raxma aad bay u niyad jabtay, waxbarashadii rajaynaysana waa ay ka mira dhilatay. Habeenada ka mid a iyadoo daalan ayaa waxay la kulantay abtigeed Sam, waxayna tiri abti waan ku salaam ugu horreyn, ma aana fahmin eedadii waxay ani igu haysato, sababtoo ah aniga meeshan waxaa lii keenay inaan waxbarasho wato, hayla haddana waxbarashadii ma aana helin, marka waan ku baryayaa la hadal. Kadibna Sam wuxuu yidhi aniga ayaa la hadlayaa, ha ka cabsan gabadhaydiyey, riyadaadana waa ay kuu rumaamaysaa. Mar walba qalbiga ku haay, mar walbana garabkaada aniga ayaa taagan, habaryartan aniga ayaa la hadlayaa. Raxma aad bay ugu faraxday arrinkaasi, waxayna rajaynaysay inuu u rumoomi doono, nolosheedana maruuna ay guulaysan doonto, waxa ay doonaysana ay heli doonto, dhibaatooyinkan ay la kulmaysana inay ka guulaysan doonto. Dhanka kale Abigail maalin maalmaha ka mid a waxay u timid hooyadeeda, waxayna ku tiri hooye macaan waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo, gabadhan yarta guriga joogta maxaa sidaasi u galaysaa? Maxaadna gabadhan guriga u keentay? Waxaana ii sheegtay inaad jaamacadda aad geenaysid, maxaad jaamacadda u geylaadahay? teeda kale hooye macaan waan ku arkay gabadhan sidaad ula dhaqmaysid, weliba waxaad ula dhaqmaysaa sida shaqaaleyoo kale, weliba adigu waad ka soo horjeedaa. Marka hooye macaan ii sheeg dhibka xaguu ka jira, qaladkana xaguu ka jira? Sidaasoo kale waad ogtahay gabadhani waxaa dhashay habaryartay Rihanna, marka ii sheeg dhibka meesha uu ka jiro, sababtoo aniga ma aana fahmin. Kadibna Salwa way hadashay, waxayna tiri gabadhaydii waa saxan tahay, hore ayaana kugu sheegay, waxaana ku dhahay gabadhani waxaan halkan u keenay inay waxbarasho ay ka sii wadato, laakiin ma ogtahay dhibaatooyinka weyn ay gurigan u abuurtay? Ma ogtahay gabadhan inay tahay sixirley, weliba dhibaato badan guriga ku keentay? Abigail markii hadalkaasi maqasho hooyada ayay fiirisay, waxayna ku tiri hooye macaan aniga ma ku rumaysanayey. Teeda kale waxaan ku weydiinayaa haddii gabadhani aadhaysi waxay gurigan ay ku abuurtay dhibaatooyin fara badan, ama ay tahay sixirley, maxaa kuu dee dib inaad ugu celisid xaafadda hooyadeed halkaas isaga noolaatee? Kadibna hooyada ayaa waxay ku tiri maya gabadhaydiyey, ani arrinkani waxaan u samaynayaa waxay tahay gabadha inaan wax baro. Kadibna Abigail waxay tiri macquul maan hooye macaan, lagamana yaabo inaan ku rumaysto, marka waan ku baryayaa gabadhani dhibaatada weyn aad ku hayso ka daa, haddii kale mar uun cuqubadeeda ayaa kaa soo bixi doontaa. Waan ku baryayaa hooyo, gabadhani waa gabadh fiican, iska daa. Laakiin maamadii ayaa waxay ku tiri aniga gabadhaydii waxaan intaas u samaynayaa inaan famligeyga aan badbaadiyo, dhibaatana iska soo gaadhin, sidaas ayaana u sameeyey, qasabna waaye gabadhan inaan wax baro. Intaa kadibna Abigail hooyada iyadoo la yaaban ayay meeshii ka tagtay, qolkeeda ayayna gudaha u gashay. Maalmo kadib Sam wuxuu guriga ku soo laabtay xilli aan la filayn,
maalinkaasna guriga qof ma uusan joogin. Xaaskiisa waxay ku maqnayd shaqada, gabadhiisana waxay aaday xilligii waxbarashada. Gurigana waxaa jooga Raxma, taasoo qabanaysay howlaha guriga. Maalinkaasna waxa ay dhaqaysay dharka, weliba dharkiisa, dharka gabadha Abigail, iyo weliba dharka xaaskiisa. Kadibna wuu aamini waayey, waa uu la yaabay, wuxuuna ku yidhi, kaale su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. Aaway shaqaalihii guriga ka shaqaynaysay. Kadibna Raxma ayaa u jawaabtay, habaryar ayaa waxay u dirtay gurigeeda, oo kaalay guriga shaqadiisa adig maa maalin walba qabatid. Kadibna waxay tiri maya, oo iyadoo isdhahaysa abtiga wax ka qari, waxay ku tiri waa maalinkii ugu horreeyay aan hawshaani qabanayo. Habeenkaasi markii la gaaray, Sam wuxuu la kulmay xaaskiisa, wuxuuna ku yidhi, ma aamini kartaa waxaan maanta guriga ku arkay, see gabadhaasi guriga uga shaqaynaysaa. Teeda kale waxaan rabaa xaaskay inaan su'aal ku weydiiyo, sababtaad gabadhani waxbarasho aad u geyweysa maxay tahay, sida xunna maxaad uga dhaqmaysaa, ii sheeg su'aashaydii igana jawaab. Kadibna xaaskii Salwa way aamustay, hadalka ayaana ku dhigay, waxayna bilowday inay ka fikirtay wixii ugu jawaabi lahayd. Kadibna Salwa ninkeedii waxay ku tiri, aad baan uga xunahay, gabadhan hadda ayaan rabaa inaan waxbarasho geeyo. Sam ayaana mar kala hadla, wuxuuna yidhi gabadhan waxay u qalantaa waxbarashada tan ugu fiican in la geeyo, marka waa inaad ku dhaqaaqda arrinkaasi. Kadibna xaaskii waxay ku tiri, okay, ha ka welwelin, aniga ayaa intaasi samaynaya. Laakiin intaasi ma aysa samayn, oo waxay rabtay ninka inay iska sisirto. Gabadhiina waxay bilowday dukaan suuqa inay uga dhex furto, dukaankaasoo waxyaabo badan lagu gadayey, weliba waxyaabaha la xiriira dahabka iyo weliba alaabo kale. Waxayna tiri waa inaad halkaanay ka shaqaysaa. Waxayna u diiday guriga xitaa inay ka shaqayso, waxayna tiri halkaas waa inaad joogtaa. Raxma waxbarashadeedii waa ay ka niyad jabtay, waxayna isdhahaysay baluun mar uun waxsaani ka bedel, maadaama hadda uu la hadla adeerka, waa inaad si aan wax ka beddeshaa. Raxma waxay u shaqaysay si adag, lacag badan ayayna dukaankii ka soo saartay, laakiin eedadii waxay bilowday lacagtaas inay ku raaxaysato meeshii laga rabay gabadhan inay waxbarasho ku geyso. Waxay tiri gabadhaydiyey, hore wad shaqadanna waan ka helay sidaad u shaqaynaysid, marka xigtana waxaan ku gey doonaa waxbarashadaada, waa inaadna samaysaa lacag fara badan. Raxma intay dukaanka ka shaqaynaysay, waxay halkaasi ku aragtay mid ka mid a macaamiilka, kaasoo lagu magacaabi jiray Dickson. Dickson wuxuu ahay nin aad u qiimo badan, dadkana xushumeeya, wuxuuna ka mid ahay macaamiisha wax ka gata Raxma. Maalin maalmaha ka mid a ayuuna u yimid, wuxuuna ku yidhi, Raxma waxaan doonayaa inaan saaxiibo noqono haddii aadna dhib u arkin. Raxma isla markiiba kama aysan labalabayn, sababtoo ninkan waa ay taqaanaa, wuxuuna ka mid yahay macaamiisheeda. Waxayna ku tiri soo dhowow, waan kaa aqbalay saaxiibtinimadaada, hadda wixii ka dambeeyana saaxiibo ayaa nahay. Dowladana waxay bilaabeen waqti joogtaa inay wada qaataan. Dickson wuxuu jacayl xadaafa u qaaday Raxma, wuxuuna go'aansaday jacaylkiisa inuu u soo bandhigto. Maalin ayayna labadooda waxay isku raaceen dhankaasi xeebta. goortii ay waqti soo wada qaateen, Dickson ayaa Raxma waxa uu ku dhahay, Raxma waxaan doonayaa inaan arrin kuu sheego, arrinkaasna wax kale maahan, waxa uu yahay sidee u aragtaa saaxiibtinimadan haddaan jacayl u beddelno kadibna guur. Raxma oo markii ugu horraysay iyada jacayl loo sheegto, waxayna ku tiri waxaan u baahanahay waqti inaan arrinkani ka soo fekero, sababtoo waa igu adag tahay. Dicksonna waxa uu ku yidhi waqtigaada qaado. Goortii Raxma ay gurigii dib ugu soo laabatay, waxay bilowday inay arrinkay ka fekerto, sababtoo waxay ogeed in walaasheeda Abigail ay niman badan guriga keentay, iyadana loo diiday. Raxma waa ay fekertay, laba maalin markay ka soo wareegatana waxay farriin u dirtay Dickson, waxayna ku tiri waxaad tahay qof naxariis badan, marka jacaylkaadii waan kaa aqbalay. Sidaasoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego, waxaad tahay jacaylkay ugu horreeyey. Dickson markuu hadalkaasi maqla aad buu ugu farxay, wuuna aamini waayey, wuuna uga mahad celiyey isagoo u soo diray image love ah. Arrinku intaasi keliya ma ahayn, maalmo markay ka soo wareegteen, Dickson iyo Raxma waa ay kulmeen, weliba waxay doonayeen si qoto dheer inay isku bartaan. Kadibna Raxma ayaa hadashay, waxayna tiri, aniga magacaygu waa Raxma, waxaan la noolahay walaashay iyo weliba hooyaday. Aniga waxaan sidaasoo kale ka shaqeeyaa baqaarkii aan aniga isku soo barannay. Waxbarashadana waxaan ka gaaray inaan dhammeeyo dugsiga sare. Sheekada famligay waa ay dheer tahay, laakiin mar kale ayaan kuu sheegi doonaa, ee adiga dhankaada ka warran. Kadibna Dickson ayaa hadlay, waxa uuna yidhi, aniga waxaan ahay nin ganacsada, ganacsigaygana waxa u dhexeeya Gaana ilaa Yurub. Teeda kale waxaan rabaa aniga gabar wanaagsan, taasoo marka aan ganacsiga ugu maqanahay bannaanka ila sii joogta kan gudaha. Raxma markay maqashay ninkani waa ay la yaabtay, sababtoo uma aysan malaynin ninkani, oo waxa ay ka aaminsan inuu yahay nin iska caadiya, shaqooyin yaryarkaana iska qabta. Laakiin way amri weysay markay ogaatay inay jacayl u qaaday nin taajira, kaasoo haysta hanti saa'ida. Sidaasoo kale Dickson waxa uu yidhi, waa arrin wanaagsan labada dhinac isbaranno, sidee laakiin u aragtaa famligaada haddaad soo bartid?
raxma markii hadalkaasi maqasho way cabsatay sababtoo waxa ay ogeed habaryarteed laakiin waxay ku tiri dhib ma leh waan ku soo barayaa laakiin sidee u aragtaa marka hore haddii adiga familgaada ay soo batid digsonna kama uusan labalaban wuxuu dhahay diyaar waaye aniga ayaana ku soo barayaa maalin markii ay ka soo wareegatay digson waxa uu dukaankii ugu yimid ninaha dukaanka ee raxma ka shaqaynaysa ayuu baabuur soo hor istaajiyey weliba markaasi wuxuu watay baabuur qaaliya raxma way aragtay baabuurka waddada taagan laakiin digson kama uu soo tegno waxa uu sugayey inta ay dukaanka iska soo xidhayso oo baabuurka ayuu ku dhex sugayey goortii ay shaqadii soo dhammaysay ayay dukaankii soo xirtay waxayna aragtay baabuurka gudahana ugu jiro digson waxa ayna ka codsaday inay gudaha u soo gasho kadibna waa ay ka aqbashay wayna aamidi weysay wuxuuna dib ugu soo kaxeeyey xaafaddiisa si halkaas ay famligiisa ugu soo baro goortii ay gurigii soo gaatay raxma way aamini weysay sababtoo waxay aragtay guri aad u qurux badan kaasoo marnaba aan maskaxdeeda ku soo dhicin waxayna u malaynaysay xitaa inay riyoonaysay digson waxa uu ku yidhi guriga ku soo dhowaaw gurigaanna waa gurigayga sidaasoo kale habeenkii halkaas ayay ku wada casheen wakhtina ku qaateen famligana uu ku baray goortii ay cuntadii dhammeeyeen raxma waxay aaday qolkii loo diyaariyey digson ayaana soo raacay waxa uuna ka dalbaday inuu iyada la seexdo laakiin waxay u sheegtay intaas aysan macquul ahayn iyadana aysan wax samay karin arooska ka hor kadibna waa uu ka aqbalay digson hadalna kuma uu soo celin inkastoo ayd xilli dambe raxma habaryarteed ayay wacday waxayna u sheegtay wax walba iyo weliba caawa inay soo dhaxayso kadibna habaryartii waa ay ka aqbashay habeenkaasna waxay seexatay gurigii digson subaxeegay markii la gaaray digson waxa uu gaarigiisa ku soo qaaday raxma oo gurigeeda ayuu u soo qaaday xilligaasi sam guriga ma uusan joogin laakiin waxaa joogay salwa iyo weliba gabadheeda markay arkeen gaariga quruxda badan waxay soo aadeen dhankaasii albaabka waxaana ka soo degay raxma iyo weliba digson isla markiina habaryartii ayaa soo dhowaysay waxayna tidhi gabadhayda raxma adiga iyo saaxiibka soo dhowaada gurigana gudaha u soo gala waa inii jeedaa inaad daallan tihiine raxma way og tahay habaryarteed inaysan arrinkan ku faraxsaneen laakiin ay samaynayso dhoolacaddayn laakiin way iska aamustay kadibna dhammaantood gudaha ayay soo galeen goortii ay gudaha soo galeenna isla markiina raxma ayaa hadashay waxayna ku tidhi digson iska baro tani waa hooyaday waxaana lagu magacaabaa salwa sidaasoo kale gabadhaanna waa walaashay waxaana lagu magacaabaa abigail sidaasoo kale hooya iyo abaayo iska barta ninkana waxaa lagu magacaabaa digson sidaasoo kale waxay u sheegtay inuu aabbeed xilligaani u joogin shaqana uu ku ma'an yahay xilliga xigto uu yimaadana ay wada kulmi doonaan hal saac kadib digson ayaa codsaday inuu baxo laakiin habaryartii ayaa waxa ay ka codsatay digson weliba iyadoo dhaawacdaynaysa waxay tiri wiilkaygiiyo intaan ma bixin lambarkaaga ii reeb si markii ninkayga u yimaado arrinkaad aanu la wadaago sababtoo hadda waxaad ka tirsan tahay qoyskii isla markiina kama uusa diidin wuuna ka aqbalay lambarkiisa ayuuna siiyey kadibna waa uu ka sii dhaqaajiyey goortuu sidaas u dhaqaajiyey salwa waxay yeertay raxma waxayna ku tidhi digson muxuu qabtaa noloshiisanu maxay tahay kadibna raxma waxay u sheegtay wax walba waxayna tidhi ninkani waa nin ganacsada una safraa gaana ilaa yurub ganacsigiisuna waa sidaasi goortii habaryartii hadalkaasi ay maqashay waa ay ka masayrtay raxma waxayna u qaadday xaasnimo gooniya waxayna sidaasoo kale qalbiga ka tiri iyada iska hadlaysaa kaalay uma qalamtid ninkani taajirka waxaana u qalantay gabadhayda sababta adig waxaad tahay gabar u soo barbaartay duruuf mar kale ayayna waxay ku tidhi hubtaa ninkan inaad jeceshahay raxma iyadoona ka labalabanayeyna waxay ku tidhi ninkan waxaan aqaannaa ku dhowaad bil waana nin wanaagsan waana jeclahay habaryartii ayaana mar kale waxay ku tidhi maalmahan layskuma aamini karo nimanka taajiriinta waxa ay keliya kaa rabaa inay kula seexdaan kadibna ay kaa tagaan iyagoo kugu cayaaraya marka gabadhaydiyey waa inaad arrinkani ka taxadirtaa oo aad ka foojignaataa raxma habaryarteeda ayay u mahad celisay waxayna tidhi habar macan waa mahadsan tahay kadibna waa ay ka tagay qolkii ayayna iska gashay goortii ay qolkii aadana waxay bilowday in arrinkii ay ka fakartay habaryarteed u sheegtay sababtoo waxay dareentay qalbijab saayida laakiin raxma waxaasoo dhan waxaa kala weyn jaceylka u qabtay digson maama ayaana waxa ay dhehaysay shimbirka haddii dhulka uu ku duulo oo buur dusheedana ku dego weli dhulkii ayuu taagan yahay waxayna bilowday habaryarteed waxay u sheegaysay inay iska dhiga tirto ayna qalbigeeda raacdo saaxiibkeedna jaceylka ay u sii waddo raxma markii habeenkii la gaaray waxay dib uga soo laabatay shaqadii guriga ayayna timid waxayna bilaabeen abigail inay wada sheekaystaan waxayna ku tidhi abigail ma aamini kartid waxaan soo arkay maalinood markii aan tegay guriga digson waxa uu ku nool yahay guri aad u qurux badan gaariyaal qurux badan ayaa yaalla sidaasoo kale marka aad gudaha u gashid
maba aamini karti inaad ku nooshahay guri caadiya, waana guryihii tiifiyada aan ku arki jirnay. Waxaadna u malaynaysaa markaa meeshaasi joogtid inaad riyoonaysid. Goortii Raxma ay hadalkaasi u sheegtay Abigail waa ay ka masayrtay walaasheeda. Kadibna waxay ku tidhi, hambali abbaayo, waan kugu hambalyaynayaa, arooskaadana ma sugi karo. Iyadoo qoslaysa ayayna ka tagtay, qolkeeda ayayna aaday. Goortii qolkii ay gashay ayay Abigail waxay tidhi, alla ilaahayow, waxaan shukaansanayay niman badan, weliba wax badan ayaa wada soconnay, mana jiro hal mid oo ka mid oo xitaa guri leh. Mararka qaar aniga ayaa baaburraaxa ka soo bixinayay si ay guriga igu yimaadaan. Laakiin ka waran, Raxma ninkii ugu horreeyey ayaa waxa uuba leeyahay hanti, waana nin taajira. Abigail iyo weliba hooyadeed waxaa ku sii siyaaday masayrkii ay u qabeen gabadha yarta ee Raxma. Maalmaha ayaana waxay dhahaysay, 5 farood marnaba ma sinna. Intaa kadibna habeenkii markii la gaaray, Salwa waxay u timid gabadheedii waxa ayna ku tidhi, ma aragtay Raxma ninka ay guriga keentay? Adigana niman badan ayaa guriga keentay, marna uma aan arkin mid taajira. Mararka qaar adiga ayaa baaburraaca ka bixinaysay. Waxaan ka xishoonayaa inaan ku dhaho waxaad tahay gabadhaydii. Abigail waa ay murugootay, weli iyadoo maamadii hadalkii sii wadata waxa ay tidhi, aniga hore ayaan kuugu sheegay gabadhan inay saaxiro tahay, umana qalanta ninkaasi taajirta, adiga ayaa u qalmaa. Sababtoo ah markaan dhimanno waxaad u baahan tahay qofku daryeela. Kadibna Abigail waxa ay tidhi, hooyo markii hore ma arran rumaysan, laakiin xala markay ii sheegtay ayaan rumaystay. Waxaana ogaaday inay iyadii igu jejeesayso. Waadna saxanta hooyo macaan. Kadibna maamadii ayaa tidhi, aniga ayaa aqaana waxaan samaynaya gabadhaygayga warsug. Abigail waxaa ku sii siyaaday cadaawadda ay u sii qaadaysa walaasheeda, maadaama ayada hadda yeeshay nin taajira, weliba guri qurux badanna leh, baabuur qurxoonna wata. Dhanka kale, Raxma waxay wakhti la qaadanaysay saaxiibkeed, ilaa maalin laga soo gaaray. Dickson waxa uu yimid Raxma, waxuuna ku dhahay, Raxma waxaan doonayaa dalxiis inaan u aado dalka Maraykanka, sida ayaad u aragtaa haddii halkaas aan isku raacno? Raxma way aamini weysay, kadibna hab ayay halkaasi ku siisay, waxayna ku tidhi, meel walbaad aadda aniga waan ku raacayaa. Weliba iyadoo dhoolla caddaynaysa, lagana dareemayo farxadda. Laakiin waxay ku tidhi ugu horrayn, waxaan u baahanahay fasax inaan ka soo qaato habaryartay. Dickson waxa uu ku yidhi, okey, waxba kama qabo. Habeenkii markii la gaaray, Raxma goortii ay guriga soo gaartay habaryarteeda iyo waxay la wadaagtay arrinkii, habaryartiina aad bay ugu farxday. Sidaasoo kale Abigail ayaa meesha joogtay, aad bay labadooda ugu farxeen, laakiin qalbiga ayay ka gubanayeen, xaasnimo ayayna ugu hayeen qalbiga. Maalmo yara kadib, Raxma habaryarteed Salwo waxa ay wacday Dickson, waxayna ku tidhi, wiilkaygiyo waan ku salaamay, sidee tahay? Kadibna isagoo yaabanayo wuxuu ku yidhi, waan fiicanahay. Waxayna ku tidhi, wiilkaygu waxaan rabaa arrin muhiim inaan kaala hadlo. Marka sidee ayaad u aragtaa markay saacadu tahay 6da duhurnimo inaad guriga igu imaatid, weliba idigoona ogeysiin Raxmo una sheegin inaa imaanaysid? Weliba isagoo shakisan ayuuna wuxuu ku yidhi, okey, waan kuu imaanayaa. Waqtigii markii la gaaro ayuuna wuxuu u yimid maamadii, weliba guriga ayuu ugu yimid. Goortii u yimidna waxay ku tidhi, waa mahadsan tahay imaanshahaada. Waan ogahay inaad gabadhayda jeceshahay, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin sir ah, sababtoo waan ogahay waxaad jeceshahay gabadhayda. Adigana sidaasoo kale waxaad tahay wiil qurxoon, waxaadna u qalantaa gabar wanaagsan. Maxaa yeelay waxaad rabtaa inaad guursatid gabar hore u soo guursatay. Dickson waa uu naxay, laakiin waxa uu sii dhegaystay maamadii hadalkeeda. Waxayna tidhi, xaqiiqdu waxa ay tahay inaan Raxmo aniga aan dhalin oo aysan gabadhayda ahayn. Waxaa dhashay walaashayga weyn. Goortii ay dhammaysay iskuulka, waxay bilowday inay wiilasha la seexato, sidaa darteedna waxay u qaadday uur. Kadibna waalidiinteeda markay ogaadeen ayay uurka iska soo xeeqday. Sidaa darteedna waxaa loo soo diray magaaladan Accra si arrinkaasi ay u joojiso, iyo weliba inay halkaani jaamacad ay ka bilowdo maadaama dugsiga halkaas ay ku soo dhammaysay. Laakiin ilaa hadda wax isbeddela ma aysan samayn, sidii ayayna weli ku socotaa. Jaamacaddiina warkeeda waa ayba diiddaba, maalin kastana waxa ayba raadsataa nin kale. Sidaasoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego in gabadhaasi ay kuu khiyaanayso dabeecaddeeda wanaagsan, laakiin way iska dhigdhigaysaa oo ma laha wax dabeecad wanaagsan. Wiilkaygiiyow ma rabo markii hadhow gabadhan aad guursatay mararba in ay soo wacdid idag oo ka cabanaya. Dickson ayaa isla markiiba yaabay, waxa uuna yidhi, laakiin waxay hore iigu sheegtay inaysan soo guursan. Kadibna habaryartii ayaa waxay tidhi, weliba iyadoo qoslaysa, been ayay kuu sheegtay, laakiin sug su'aalan ku weydiiyey, iyada ma la seexatay? Kadibna Dickson waxauu yidhi, maya, hore ayay u diidday. Waxayna tidhi, ma rabo guurka ka hor inaan waxaasi aan sameeyo. Kadibna waxay tidhi, been ayay kuu sheegtay, waxayna doonaysay sirteeda inay qariso. Teeda kale,
isbuuca soo socda waxa uu imaanaya saaxiibkeed, marka haddii aad rabto waan ku casuumayaa waan imaan kartaa si aad indhahaada ugu aragtid. Gibson oo yaaban ayaana dhahay, waa bixi karaa. Kadibna waxay tidhi, haa wiilkaygiiow, waa bixi kartaa. Goortii uu baxay oo ka dhaqaaqana, oo weliba intuu waddada sii socday, waxa uu ka fekerayay arrinkan. Maskaxdiisana waxaa ka guuxaya su'aalo badan iyo weliba waxyaabo fara badan oo ku saabsan Raxma, wanaaggeedii iyo weliba waxaan habaryarteed u sheegtay. Goortii uu baxay, Raxma habaryarteeda waxay wacday nin ka shaqeeya korontada, waxayna ku amartay inuu guriga yimaado. Goortii uu yimidna waxay u dirtay qolka Raxma, maadaama Raxma xilligaasi shaqada ay ku maqneed. Waxay amar ku siisay in uu laambadda iyo weliba korontada qolkaasi uu ka gooyo, kadibna uu ka soo tago. Goortii uu hawshii dhammeeyena, waxay sidaasoo kale ka dalbatay inuu soo laabto maalin cayiman. Weliba maalinkaasi waxay u sii raacsiisay inuusan wax qalaba soo qaadan, waxa ayna siisay lacag fara badan. Kadibna waa uu ka aqbalay, waa maadsantahay ayuuna ku yidhi. Dhan kale aan u soo wareegna Raxma. Goortii shaqadii ay ka soo laabatay qolkeedana ay tagtay, waxay aragtay qolkeeda inuu mugdi yahay. Kadibna korontada ayay fiirisay, uma shaqaynayso. Habaryarteed ayay noo timid, waxayna tidhi, korontada ma ii shaqaynaysa habaryar, maxaa ku dhacay? Waxay tidhi, gabadheedii ma sheegi karo, laakiin waxaan wacayaa wiilka korontada. Kadibna waxay tidhi, okay dhib ma leh. Maalinkii xigayna Raxma waxay la kulantay Gibson, laakiin Raxma maalinkaas ay la kulantay waxay aragtay Gibson inay wax weyn ay ka qaldan yihiin. Waxayna dhahday, wax dhima jira. Waxa uuna ku yidhi, maya wax dhima jiraan. Raxma goortii ay guriga ku soo laabatay qolkeeda ay toos u aaday, sariirta ayayna isku tuurtay. Sidaasoo kale xitaa maalinkaas shaqada ma aysan aadin oo Gibson ayay ka timid, waxayna ka fakaraysay sida maanta uu iyada ula soo dhaqmay. Dhanka kale, habaryarteed ballanqaadka ay u samayso ah in nin ay koronto guriga ay keeni doonto, nimays ilaa hadda keenna qolkana mugdi ay ku tahay. Halkaasna waxay ku dareemaysay murugo saa'ida. Teeda kale, waxa uu ahay Gibson jaceylkeedii ugu horreeyey, wayna iska ilimeynaysa. waxay dhahaysay, muxuu sidaani ku galayaa? Habaryartii oo arrinkii ku soo degtoonaatay ayaana waxa ay tidhi, gabadhaydii maxaa kugu dhacay? Waxaadna maanta shaqada u aadi weysay. Raxma waxay tidhi, habar macaan aad baana wax u mahay. Maanta waan yara xanuunsanahay, xaaladdeeduna waa liidataa, marka waxaan go'aansaday inaan guriga iska joogo. Habaryartii ayaa ogaatay qorsheed inuu si fiican ugu socdo. Kadibna waxay tidhi, waaw, waa wixii aan doonayay, oo shaygana hadda wuxuu u socdaa inuu guulaysto. Sidaasoo kale waxay iska hilmaantay walaasheeda wixii ay u soo samaysay iyo weliba rafaadkay u soo martay. Maanta heerkaan ay joogtaan inay ida soo gaarsiisay. Waxaan ka hadlaynaa waa Raxmo hooyadeeda. Kadib goortii qolkii ay Raxmo ka soo baxda, waxay bilowday inay Abigail wacdo, waxayna ku tidhi, gabadhaydii iyo qorshaygii si fiican ayuu u socdaa, marka waa inaan u dabaaldegnaa maadaama hadda aan ku guulaysanay. Dhan kale, Raxmo qolkeeda ayay isaga jirtay, aad bayna u murugoonaysay. waxayna dhan kale fariimo ay diraysay Gibson, laakiin Gibson wuu iska indhatirayay fariimaha iyadoo dirayso, oo saacado kadib ayuu u soo jawaabayay. Mararka qaar markii ay wacdana, iyada mobilka kama uusan qabanin oo wuu iska dhagatirayay. Waxa uuna ku dhahayay, hadda waa mashquulsanahay, aniga ayaa ku soo wacaya. Laakiin marnaba iyada sooma uusan wacin. Raxma jaceylkiina waa uu ku sii siyaadayaa, murugadana dhinac ayay u taallaa, waxayna isweydiinaysaa sababtoo jaceylkaad u horraysay aan u noqdo maxaa qaldan. Habaryartii oo arrinkii mar kale ku sii baraarugtay ayaa Raxmo ku soo laabatay, sababtoo Raxma waxay iska joojisay cunitaankii cuntada xitaa ay cunaysay. Ayada dhanna waxay noqotay qof caata. Habaryartii ayaana gabadheeda u timid, waxayna ku tiri, gabadhaydii wax weyn ayaa qaldana, ii sheeg maxaa kugu dhacay? maalmahan waad isbeddeshay, shaqadana sidii hore kuma tiide. Raxma go'aan waxay ku gaartay inay habaryarteeda wax walba u sheegto. Waxay tiri, habar macaan, hadda waxba kaama qari karo, waxaana doonaya arrinka ku saabsan aniga iyo Gibson inaan wax kaaga sheego. Gibson maalmahan waxa uu bilaabay inuu xitaa fariimahayga uu iska dhaga tiro, markaan wacana uu ii sheego inuu mashquulsan yahay, kadibna uuna dib iigu soo celin. Habaryartii ayaana waxay tiri iyadoo sheekada qurxinaysa, gabadhaydii hore ayaan kugu sheegay, nimankani taajiriinta waxay jecel yihiin gabdhaha masaakiinta weliba faqiiriinta inay ku cayaaraan. adigana waan u malaynayay sidaas inuu kugu samaynayo, gabadhaydii iska samir. Raxma oo weli hadalkiisii wadata ayaana waxay tiri, habar macaan, ninkaas ilaa hadda isnama aana jiifan, muxuuna iiga tegey? maxaana ka sameeyo qalada? muxuuna sidaan iigu gelayaa? Habaryartii ayaa tiri, war hadduuba kula seexan waa ay fiican tahay, sababtoo nimanka taajiriinta waxay sameeyaan waxay tahay inay gabdhaha ay ku cayaaraan kadibna ay ka tagaan, laakiin khiyaanadaas uu ku sameeyey wuu ka shalay doonaa. gabadhaydii iska ilmaan waxaan. Teeda kale, bisha socota waxaan doonayaa inaan waxbarashada aan kuu diro oo jaamacadda aadid, si aad waxaad u ilmaantid, noloshadana aad dib u soo celisid. gabadhaydii garabkaada ayaan taaganahay, marnaba ha dareemin cidlo.
oo aniga iyo gabadhayda ayaa mar walba garabkaada taagan. Teeda kale ninkii korontada maalmahan muusan imaan, laakiin waa la hadlay, wuxuuna ii sheegay beri guriga inuu imaan doono, isaga ayaana kaa xalinaya. Raxma arrinkaasi aad bay ugu farxday, qolkeeda ayayna iska sii joogtay. Inkasta oo rajo la'aan ay dareemaysay sidii habarteed u waanisay, waxay bilowday inay arrinkaasi ka sii fikirto, maskaxdeedana ay ku buuxdo. Dhanka habaryartii goortii qolkii ka soo baxda waxay wacday ninkii korontiista ahay, waxayna ku tiri beri waa inaad guriga imaataa, weliba iyada u ballan qaaday lacag badan. Sidaasoo kale waxa ay habaryartii ay wacday Dickson, waxayna ku tiri beri waxaa imaanaya Raxma saaxiibkeed, marka si aad u aragtid guriga waad imaan kartaa. Dicksonna waa uu ka aqbalay. Habeenkii markii la gaarana wax badan ayaa maskaxdiisa ka guuxayay, wuxuuna dhahayay maxay Raxma sidaas oo dhan kugu qiyaamaysaa, taasna maahan mid la aqbali karo. Habeenkana sidaas ayuu ku dhammaaday. Subaxeygii markii la gaaray, ninkii korontiistaha waa uu yimid. Habaryartii markay aragtana way canaanatay, waxayna tiri maxaad u soo daahday. Kadibna waxay ugu yeertay Raxma, waxayna ku tiri Raxma, ninkani u qaad qolkaaga, soo tus meesha cilladda ka jirto. Kadibna waa ay ka aqbashay, waa uuna salaamay, wuxuuna yidhi Raxma waan ku salaamay. Laakiin Raxma waxay ogaatay ninka inuusan qalab wadan, waxayna ku tiri qalabkaadii aaway. Wuxuuna u sheegay inuusan hadda wax qalab wadan meeshan u yimid marka inuu fiiriyo. Kadibna waa ay ka aqbashay, qolka ayuuna u kaxeeyey. Kadib markii qolka ay galeen ayuu wuxuu ku yidhi adiga ma lagu qabaa, waxayna ku tiri haa waa lay qabaa. Kadib ayuu mar kale yidhi lambarkaada ma i sii kartaa, waxay ku tiri see lambarkayga kuu siinaya, hore ayaan kuugu sheegay waaba lay qaba ayaan ku dhacaye. Kadib ninkii wuxuu bilaabay inuu gabadhii u soo dhowaado si uu jidhkeed u taabto. Raxma aad bay u carootay. Dhan kale Dickson ayaa wuxuu yimidba saacado kadib, waxaana soo dhoweysay habaryartii, waxayna soo fadhiisay qolka fadhiga. Isla markiina waxay bilowday Raxma inay u yeerto. Raxma way aamini weysay markay maqashay in Dickson meeshaan uu yimid weliba iyada darteeda. Kadibna qolkii ayay u soo orday iyadoo aad ugu faraxsan. Kadibna Raxma habaryarteeda ayaa Dickson waxay ku tiri Dickson xilligaani maxaa ku keenay. Kadibna Dickson wuxuu qaatay neef dheer, waxauna ku yidhi meeshaani waxaa noo imid si aan u raaligeliyey gacalisadeedii Raxma oo maalmahan ay naga dhexeeyeen colaad yar, marka hadda waxaan u imaaday inaan raaligeliyo, aad baan ugu faraxsanahay. Raxma markay intaasi maqasho aad bay u faraxday, illimada ayaana ka daadatay. Kadibna Dickson ayaa hadlay, wuxuuna yidhi waan ogahay waxaan kugu sameeyey, laakiin waan kaa raaligelinayaa. Raxma mar kale ayay ku sii faraxday, wayna uga mahadcelisay maadaama jaceylkeeda hadda dib u soo laabtay. Iyadoo dhanna waa isbeddeshay, weliba farxad ayay dareemaysay. Laakiin sheekadii ayagoo weli ay sii wataan ayaa waxaa dhacay waxaan la filayn. Ninkii korontiista ayaa wuxuu qolka ka soo baxay, isagoo shaatiga garabka u saaran yahay. Waxa uuna ku yidhi aniga hadda waan baxay Raxma, jaceylkaygii mar kale ayaan kulmi doonaa. Kadibna Raxma ayaa waxay tiri maxaad ka wadaa jaceylkaygii, ma ana fahmini. Hadalkeeda ayuu iska dhaga tiray, toos ayuuna u soo baxay. Dickson oo meesha fadhiyey wuu aamini waayey. Ninka guriga ka soo baxaya feeraha qaawan, shaarkuun dhabarka u saaraya dhahaya jaceylkayga. Kadibna Dickson Raxma ayuu ku soo jeestay, waxa uuna yidhi maxaa kaa qaldan, maxay tahay ninkani qaawan ee gurigaada ka soo baxaya. Kadibna waxay ku tiri waa nin koronta, dhan kale habaryartaan u laabanno. Goortii ogaatay inay xaaladdu xumaatay ayay waxay ku tiri wasug bal aniga biyaha inii keene. Qolka ayayna gashay, waxayna bilowday inay aad u faraxdo, iyadoo weliba dabaaldegaysa. Waxayna dhahaysa hadda waan guulaystay, Raxma jaceylkeediina waan ka burburiyey, aan dib ugu soo laabanno. Dickson wuxuu ku yidhi haye nin kale ayaa shukaansanaysa miya. Kadibna Raxma waxay tiri maya, ninkani ma ahan ninaan shukaansanayey ee korontada ayuu xallinayey. Laakiin Dickson wuu aamini waayey, wuxuu yidhi waxaas wax macquula maahan, haddii xitaa uu koronto xallinayey muxuu ku yidhi macaaney ii sheeg iyo weliba jaceylkayga. Raxma waxay tiri aniga taasi ma sheegi karo, ninkanna isma taqaano. Habaryartii ayaana wax walba kuu sharaxaysaa. Nasiib darrose habaryarta meesha ma aysan joogin. Dicksonna awal hore ayuu wuxuu u heystay cashir horey maamada siiday, kadibna si degdeg ayuu u baxay. Goortii uu baxay ayayna habaryartii qolka ka soo baxday, waxayna aragtay Raxma oo ooyeysa. Kadibna way u timid, waxayna tiri gabadhaydii maxaa kugu dhacay. Waxayna tiri Dickson wuu iga tegey. Isla markiina maamadii waxay bilowday Dickson inuu yeerto iyadoo iska dhigaysa inay gabadha ka hor taagan tahay. Waxayna ku tiri Dickson soo laabo, ninkaasi nin korontiista ayuu ahay. Laakiin way ogeyd Dickson inuu baxay. Raxma aad bay u ooysay, waxayna tiri hooye macan waan ku baryaa u wac ninkaasi, wax walbana u sharax ninkaasi inuu ahay nin korontiista oo keliya. Raxma habaryarteedii waxay ku tiri gabadhaydii hawlwel aniga ayaa la hadlayaa,
wax walba aniga ayaa u sharaxaya kadibna wuu kuu soo laabanayaa. Ninkaasna waxaan u sheegayaa inuu yahay nin korontiista. Raxma aad bay u sii hoysay sababtoo ah ninkani wuxuu ahaa jaceylkeedii ugu horreeyey. Habaryartii ayaana dab ku sii shiday waxayna tiri gabadhaydiyey. Ninkani hore ayaan u ogaay inuu yahay nin khiyaanoole ah. Maantana halkaas ayuu kaaga tegey kadib markuu ugu arkay nin korontiista oo keliya. Awalba jaceylkiisa wuxuu ahaa jaceyl aan run ahayn. Gabadhaydii iska samir, murugada ayaana kula qaybsanayaa. Mana rabo idigoo saas u weynaya inaan arko. Waan ogahay qalbijab ayaana dareemaysaa. Raxma murugadii waa ay ku sii siyaaday. Tan maanta ku dhacdana waxaa uga dareed kuwii kale. Maalinkii xigayna waxa ay bilowday si caadadeeda inay bal mar kale ay wacdo. Nasiib darase waxay ogaatay arrin kale oo ka sii naxdin badan, kaasoo ah inuu iyada baloog saaray. Isla markaadna habaryartii u timid waxayna tiri, habar macaan ma la hadashay Digson oo wax walba ma u sharaxday. Kadibna waxay tiri haa gabadhaydiyey. Laakiin wuxuu yidhi aniga mar dambe ma soo laabanaya gabadhaasi oo been ayay u sheegtay. Teedii kale waxay tiri gabadhaydii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ninka korontiista muxuu kuu sheegay markaa qolka gashay. Kadibna waxa ay ku tiri habarur wuxuu weydiiyey in aniga lay guursaday, waxaana uu sheegay in lay guursaday. Kadibna waxay tiri ninkaasi wuxuu u ekaayay nin fiican oo deggane. Sidee u aragtaa gabadhaydii ninkaas haddaad guursatid? Sababtoo ah ninkaas waa nin shaqaysanaya. Raxma hadalkaasi markii maqasho aad bay uga naxday sababtay maamada u leedahay xilligaani ninkaasi guurso. Sababtoo ninkani wuxuu yahay ninka nolosheeda burburiyey. Kadibna iyadoo hadal dhihin ayay ka sii jeesatay qalbidabna dareemaysaa. Hadalka habaryarteedna waxa uu ku noqday midi wadnaha laga geliyey. Qolkii ayayna si gashay weliba iyadoo dareemaysa dhaawac saayida. Inkastoo habaryarteed arrinkaas ay aad ugu faraxsaneed. Raxma Otu waa isgor-asbuucyo ayaana ka soo wareegatay. Go'aanna waxay ku gaartay inay ninkaasi iska ilmaanto maskaxdeedana ku dirto. Awal markii hore waxay ka leedahay rajooyin waaweyn. Rajooyinkaas oo markii iyada ay isguursadaan inay hooyadeed meesha ay ku nooshahay ka soo wado. Sababtoo hooyada xaaladdeeda ma wanaagsana. Laakiin arrinkaasi ma uusan noqon arrin guulaysta. Iyadeedana halkaas ayay ku burburtay. Raxma go'aan waxay ku gaartay mar dambe inaysan soo xasuusan. Dhanka kale maamadii waxay u tagtay gabadheed Abigail. Waxayna ku tiri gabadhaydii ninkaasi ma jeceshahay ii sheeg. Hataa jeceshahay aniga ayaa kuu soo xerogelinaya. Kadibna Abigail waxay tiri haa hooyo ninkaasi waan jeclahay. Kadibna maamadii ayaa waxay ku tiri gabadhaydii ninkaasi waa inaad la seexataa si aad uur ugu qaadid. Sababtoo waxaan rabaa markii annaka aan dhimanay inuu isagoo kula noolaado. Kadibna Abigail way ka aqbashay. Hooyo waxay tiri wixii hadda ka dambeeya mustaqbal wanaagsan ayaanu ku noolaanayaa. Ilmo ayaana waxaanu dhalayaa Digson. Weliba waxaan ku noolayaa nolol aad u qurux badan. Maamadii arrinkaasi aad bay ugu faraxday. Waxayna tiri gabadhaydii kartidaas waan kugu ogaay. Anigana waxaan kula rabaa inaad ku noolaatid nolol aad u qurux badan. Dhanka kale Raxma waxay isku dayday inay hilmaanto arrinka Digson. Laakiin taas way u suurtageli weysay. Mar walbana waxaa ku soo wareeganaya jaceylkayd u haysay. Sidaasoo kale waqti ay wada qaadanayeen. Mar ayayna xitaa waxay isku daydeen nafteeda inay goyso. Sababtoo uma adkaysan karto noloshan xanuunka badan. Waxayna isku daydeen nafteeda inay goyso. Iyadoo qolka doonaysa inay iska soo laadiso. Laakiin arrinkaasi ma aysan ku dhaqin oo way iska daysay. Maalin kale xitaa waxay aaday guriga Digson. Laakiin goortii ay gurigiisaas u soo gaartay ayaa ninkii askariga waardiyanayay waxa uu ku yidhi waan ka xumahay kuma oggolaa karo guriga inaad gudaha u gashid. Sababtoo ah Digson ayaa wuxuu u yidhi gabadhaasi guriga hadday imaato yaana loo oggolaan. Marka ma raba aniga booskay amarkii inaan jebiyo. Markaan ku baryaa meeshaanay ku tag. Raxma waxay isku dayday ninkii askariga inay la hadasho. Waxayna tiri aniga waad i taqaanaa gurigaana hore ayaan u imid. Marka iska kaydaa. Askarigiina arrinkaas waa uu ka diiday wuxuuna yidhi kuma oggolaanayo. Waxaana ka codsan inaad meeshaan ka tagtid intaysan wax kala dhicin. Raxma waxay isku dayday inay askariga la hadlo laakiin umay suurtagelin. Kadibna waxay ka soo tagtay gurigii. Sababtoo hadda rajadeedii waa ay burburtay. Waxay isdhaysay ninkani dib u soo cesho. Maalmo badan ayayna Raxma iska hoysay. qalbi jabna dareentay. Alla jaceylku xanuun badana. Raxma jaceylkeedu ugu horreeyaa si aanu ku noqday. weliba duufaan ayuu kan uga daraay. qalbijabkaas ay dareentana aad bay u adag tahay inay ka soo bogsooto. sababtaa ninkaasi waxa uu ku sameeyey iyo weliba sida ayada ay waqtigeeda ugu hortay. ismana ayna filayn si inay ku dhacayso. laakiin go'aan waxay ku gaartay nolosha inaysan wax ka beddesho. ayna hilmaanto waxyaabay isagoo ku sameeyey. ay hadda bilowda nolosha cusub. sababtoo hadda wax kaloo iyada ay samaysa ma taqaano. maalmo markii ay ka soo wareegatana Raxma nolosheeda caadiga ayay dib bilowday waxayna iska hilmaantay waxa la yidhaahdo Digson. iyadoo ku nool nolol aad u qurux badan. anna kala soo laabanno.
habarabtii gabadheeda Abigail ayaa la hadashay waxayna ku tiri, waa kan lambarka Dickson, waa inaad la xiriirtaa ninkaasna war aad ka keentaa una sheeg adiga inaad tahay gabadh aqoon-yahanada waxbarashada dhammaysay. Abigailna waa ay ka aqbashay, kadibna waxay bilowday Dickson inay la xiriirto, waxayna tiri waxaan doonayaa inaan kula kulmo. Kadibna waa uu ka aqbalay, wuxuu yidhi amiinka sabtiga aan isku hayakeen, maqaayad weyn ayuuna ku ballamiyey, taasoo ku tiila magaalada Agra. Kadibna labadooda halkaas ayay bilaabeen inay waqti ku qaataan kuna sheekaystaan, iyagoo cabitaan halkaasi ku cabay. saacaddu markii ay gaartay 9:00 habeennimona, Abigail waxay iska dhigtay qof marqaansan oo waxay doonaysay inay guriga caawa ay jiifato. Kadibna waxaa soo kaxeeyey Dickson, waxauna ku yidhi ii sheeg xaafadda maan ku geeyaa. Kadibna waxay tiri maya, sababtoo hooyadii si aan hadday ugu aragto way ugu qaylinaysaa, marka waan ku baryaa gurigaada iga qaad. Kadibna Dickson kama uusan diidin, wuxuu yidhi okay dhib ma leh, haddii ay maamada kugu qaylinaysa aniga ayaa guriga u geenaya, subaxii ayaana kaa kaxaynaya. Abigail qorshaheedii ayay ku guulaysatay, kadibna wuxuu u soo kaxeeyey gurigii, weliba gurigii Raxma ay uga sheekaynaysay. Abigail way aamini weysay guriga aadasaan u quruxda badan ee iyada lugeeda soo saartay, ninkaana uu gacmaha ka wado. Waxay aragtay gurigiisa inuu u dhisan yahay sida qasriga oo kale, aadna u qurux badan yahay, indhaheedana waayba ay ka jeedi weysay. laakiin iyada waxaa waday Dickson. Abigail weli iyadoo iska dhigaysa qof cabsanaya waxa ay ku tiri Dickson, aniga aad baan u cabsanayaa inaan seexdo keligay, marka waan ku baryaaye meelo joog kartaa ilaa intaan ka seexanayo. Kadibna Dickson waa uu ka aqbalay, daqiiqado markii ay ka soo wareegtana wuxuu go'aansaday inuu baxo, laakiin waa ay ka diiday. waxa ayna bilowday inay isaga shumisa, waxayna ku tiri waan ku baryaa su'aal ayaan ku weydiinayaa, su'aashaasna wax kale maahan waxa ay tahay aniga ma i jeceshahay. Dickson su'aashaas markii la weydiiyey isla markiiba kama uusan labanlabayn, waxaana yidhi haa waan ku jeclahay. kadibna waxay tiri ii ballanqaad inaadna weligaa iga fogaa doonin. Dicksonna waxa uu ku yidhi ballan ayaan kaa qaadayaa. subaxigii markii la gaaray, Dickson wuxuu Abigail u soo kaxeeyey gurigeeda. nasiib wanaagsan goortaas guriga la keenayey ma aysan joogin Raxma oo waxay aadday shaqada. sidaasoo kale Dickson wuu ogaa inuu u socdo guriga Raxma, laakiin wuxuu yidhi maadaama iyadaba sidaas ay iga tagtay, nin kalena iga dooratay, anigana waa inaan sidaas uga taga oo aan isaga dhiga tiraa. dhan kale habareertii way ogeed in meeshaani balaayo ay ka dhici doonto haddii aan Raxma meeshaani laga saarin, sababtu way og tahay gabadheeda ninka ay xiriirka leedahay Dickson iyo weliba sida ay Raxma uga fogeeyeen. kadibna waxay bilowday inay qorshe u keento. markay Raxma ku maqan tahay dukaanka ay halkaasi ka soo shaqaynayso, ayaa Dickson guriga imaan jiray. maalin maalmaha ka midana waxaa wada hadlay Abigail iyo hooyadeed, waxayna dhaheen Abigail ayaa hadashay, waxayna tiri hooyo macaan si aani macquul maahane maxaan samaynaa, waad og tahay Raxma wixii aad ku samaysay ninka uga fogaysay, haddana haddii gurigeenna isku aragtay balaayo kale ayaa dhacaysa maxaan samaynaa. kadibna maamadii ayaa waxay tiri gabadheedii aniga xitaa ma aqaana waxaan sameeyo, waan ogahay hadda balaayo weynaan gacmaha kula jirnay iyo dhibaatadan u geystay. kadibna Abigail ayaa soo booday, waxayna tiri ka warna hooyo macaan gurigeedii haddaan u celinno. laakiin maamadii ayaa tiri maya taasi macquul baan, walaashayna waa iga caroonaysaa, mana rabo taas inay dhacdo, laakiin iska daa gabadheedii, aniga ayaa xal keenaya, arrinkaana xalli doona. Abigailna waxay ku tiri okay hooyo macaan adiga ayaa kaa warsugaya, arrinkaana naga xalli. waxayna habeenada ka mid ah Abigail ay wacday saaxiibkeeda Dickson, waxayna ku tiri waxaan doonayaa inaad xaafadda igu soo booqato. Dickson kama uusan diidin, wuxuuna yidhi aniga ayaa ku imaanaya. kadibna xaafadda ayuu ugu yimid, waxayna bilaabeen labadooda inay halkaasi waqti ku qaataan. laakiin arrinka maalinkaasi dhaca waxa ay tahay in hooyadii dhashay Abigail ay maalinkaasi ee jadwalka aysan ku soo darsan inay Raxma guriga imaanaysay. Raxma goortii ay guriga ka soo laabatay, weliba iyadoo daalan ayay shaqada ka soo laabatay. baabuurkii Dickson oo laaka taagan markay aragtay aad bay ugu farxday, waxayna istiri adiga ayuu kuu soo laabtay. qolka ayaana orod ku soo gashay si ay isaga u aragto, maadaama ay ninkan hore ay u jecleed. laakiin goortii albaabka si ay u soo gashay ayay waxay aragtay wax ay ka naxday, qalbigana hal marqaac uga yeeray. waxay halkaasi ku aragtay Abigail iyo weliba Dickson oo halkaasi waqti ku qaadanaya, romantigna ku samaynaya. kadibna waxa ay tiri alla ilaahayow, dhulka ayayna hal mar ku dhacday, weliba iyadoo aad u naxsan. dhanka kale Abigail iyo Dickson goortii arkeen aad bay u naxeen, waxayna gabadhii una carareen ninkaas isbitaalka. goortii Raxma isbitaalka la keenana kooma ayay gashay. Abigailna waxay ku ducaysatay gabadhaas inaysan ay ka soo kicin koomada oo ay u geeriyooto. dhanka kale Dickson wuxuu yidhi maxaa iga gala haddii aad suuxdo iyo aadaan la sooxin, sababtoo adiga nin kale ayaad iga dooratay, anigana waxaan kaa doortay gabar kale. Abigail isla markiiba hooyada iyo wacda waxayna u sheegtay gabadhii inay soo haddana kooma ay ku jirto, isbitaalkana ay joogto. hooyada ayaana waxay ku tiri arrinkaasi waa arrin wanaagsan oo lagu farxo, marka meesha uga soo tag.
dhanka kale Dickson waxa uu sii maray qaybta lacag bixinta. Lacag ayuu noo dhiibay wuxuuna yidhi gabadha meesha ku jirta waa daaweynteeda. Kadibna waa uu ka dhaqaaqay oo samo uusan sugin. 4 maalin markii ay ka soo wareegatay, Raxma waxa ay ka soo kacday koomadii ay ku jirtay, waxayna bilowday inay aad u oyso, weliba ooyin laga yaabay. Dhakhaatiirta ayaana u soo dhowaaday, waxaana la yidhi gabadhaydii maxaa kugu dhacma, dhib weyn ayaa kugu jira. Kadibna waxay tiri maya, hadda anigu waan fiicanahay, aad bayna u ooyinaysay. Kadibna waxay bilowday Raxma inay ka fikirto wixii ay samayn lahayd, waxayna dareemaysay qalbi jab saayida sababtoo ah xaafaddii ay u soo doonatay inay wax ka barato ay ku hoyato ayaa waxay ku noqotay goobta hadday xanuun ay ku dareemayso, weliba nolosheedana ka burburiyey. Raxma waxay isweydiisay, lacalla haddii hadda gurigaas ka soo tagtid, xaggee ayaad aadaysaa? Gurigaadina kuma laaban kartid. Raxma su'aalo badan ayaa maskaxdeeda ka guuxay, iyo weliba wixii ay samayn lahayd. Gurigan haddii ay sii joogtana waxaa ku sii siyaadaya xanuunkii iyada haya sababtoo ah saaxiibkeeda waa lagala wareegay. Kadibna waxay bilowday guriga inay timaado, dharkeedana ay laalaabato, mana aysan aqoon meel ay aadayso. Boorsadii ayayna soo jeedatay waxayna tiri, intaan halkaa iska joogi lahay waxaa lii qaatay waddooyinka anigoo jiifta. Habaryarteeda ayaana aragtay. Gabadhaydii waxay tiri maxaa kugu dhacay, halkee ayaana u socotaa? Habar macaan, waxaan doonayaa inaan baxo. Waan idinkaga mahadcelinayaa adiga iyo gabadhaada Abigail sida wanaagsan aad ila soo dhaqanteen. Habaryartii oo iska dhigaysa qof wanaagsan waxay tiri gabadhaydii mid aan kuu sheego, gurigan haddii aad ka tagtid ogow, mar dambe dib ugu soo laaban maysid. Raxma ma aysan ogeyn meesha ay u socoto, mana taqaano meel kale ay ku hoyato, waxayna ku tiri habar macaan iska daa, dib dambe gurigan ugu soo laaban maayo, taasna ballan ayaana kaa qaadayaa. Habaryartii arrinkaas aad bay ugu farxday. Raxma sidaas oo kale waxay macsalaamaysay walaasheeda Abigail, waxayna ku tiri walaasheedii aad baan kaaga mahadcelinayaa habdhaqanka wanaagsan ay ugu samaysay. Kadibna boosada ayay bannaanka ugu soo saareen, halkaas ayayna ku sagootiyeen. Labadooduba waa ay faraxsanaayeen, laakiin Raxma murugo ayay dareemaysay, waxayna ka fakaraysay meesha hadda ay u socoto, sababtoo ah ma haysato guri kale, qof kalena magaaladani uma joogo. Raxma goortii ay sidaas guriga uga soo tagtay waxa ay bilowday inay ku biirto gabdhaha waddooyinka jiifta. Subaxii markii la garana waxa ay bilowday inay biyo cad magaalada ay ku soo wareejiso si intaas yar lacag uga samayso, kadibna ayada cunto ay u gadato sababtoo ayada ma jira wax cunto siinaya. Biyahaas ayayna magaalada Agra dhexdeeda ku wareejinaysay. Habeenkiina waxa ay la jiifanaysay gabdhaha waddooyinka jiifta sababtoo ayada hal kaloo hadda ay samayso male. Bal dhanka kale aan u soo wareegno, Dickson iyo weliba Abigail waxay ku nooleen nolol aad u qurux badan. Dicksonna wuxuu bilaabay inuu saaxiibadiisa u keeno hadiyada qaaliya. Maalin ayuuna wuxuu u keenay baabuur aad u qurux badan. Abigail aad bay ugu farxday noloshan qurux badan kadib markii ay ka guulaysatay walaasheeda Raxma meeshan ay ka saartay. Maalin ayayna go'aan waxay ku gaartay aabaheeda inay barto. Waxaan ka hadlayaa aabaheeda Sam. Wuu soo dhaweeyey, aad buuna ugu faraxsanaay. Samna teeda kale ma uusan ogeyn ninkan Dickson inuu xiriir hore u kala dhexeeyay Raxma, haddana sidaas ay ku kala tageen. Habeenkaasna guriga waxaa loogu dabaaldegay si qurux badan. Inta habeenkaas dabaaldegga uu socday ayaa Dickson waxa uu weydiiyey Abigail haddii ay jeclaaleed wax kaloo ay jeceshahay iyadu u baahan tahay. Kadibna Abigail waxay bilowday inay u sheegto, waxay tiri anigu waxaan jeclaan lahaa inaan ku raaco halkaasi dalka Maraykanka si aan halkaas dalxiis aan ugu soo qaadanno, weliba aniga adiga oo keliya. Kadibna Dickson wuxuu yidhi taas waan ku faraxsana waana samaynaya hana ka welwelin. Bal hal mar aan wax yar ka yar aha kana sheekada Dickson iyo Abigail aan balaadna dhankaasi Raxma. Raxma waxay ku nooleed waddooyinka iyadoo habeenka halkaas siifa jirtay. Subaxyada ka mid ah iyadoo biyo laamiga ku wareejinaysa ayaa nin wuxuu ka dalbaday biyo inay u keento. Goortii ay maagtay laamiga soo goyna, baabuur ayaa jug siiyey. Halkaasna gabadhii waxaa ku soo gaaray dhaawac. Isla markiina ninkii baabuurka jug ku siiyey ayaa gabadhii la soo cararay, isagoo isbitaalka keenay. Maalin alla keenna wuxuu ku soo booqanayay isbitaalka ilaa ay ka soo caafimaadaysay. Goortii ay soo yara noolaatay Raxma ayuu ninkii u yimid. Ninkaasna waxaa lagu magacaabayay John, wuxuuna yidhi ugu horreyn waan ku salaamay, magacayguna waa John, waxaana ku soo booqanayay ilaa intaa ka caafimaadaysid. Sidee ayaa hadda tahay? Raxma isla markii waxay tiri waan fiicanahay, xaaladdeyduna waa wanaagsan tahay, waa mahadsan tahay. Kadib John ayaa waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhacay, maxay famligaada kuu soo booqan waayeen? Raxma waxay bilowday inay iska oyso, waxayna tiri aniga wax famili inta ima joogaan, hooyadeenna waxay ku nooshahay magaalo ka fog magaalada Agra. Kadibna waxa uu ku yidhi waxaan ku weydiinayaa maxaad biyaha waddooyinka aad ugu iibisaa? Kadibna waxa ay tiri sababtoo waxaan rabaa inaan jaamacad galo, marka lacagtii jaamacadda ayaan hadda aruursanayaa. Sheekadaasi markuu maqlay John aad buu uga murugooday, qalbiga ayaana la taabtay.
isla markiina go'aan wuxuu ku gaaray gabadhan inuu caawiyo waxa uuna u qabtay 5 kalkaaliso oo iyada keligeed daryeela wuxuuna gabadhaasi uga taxadirayay sida boqoradoo kale mar walbana garabkeeda ayuu taagnaay goortii raxma ay soo yara fiicnaato ayuu u yimid waxa uuna ku yidhi raxma hadda xaaladaadu way wanaagsan tahay goobtas hadda aad ka shaqaynayso biyaha ku iibinaysidna dib uguma laabanaysid sidee ayaad u aragtaa gurigay haddii aad ka shaqaysid weliba hooyadii ayaad caawinaysaa waxaana ku siinayaa lacag fara badan jaamacaddaadana sidaas ayaa ku bilaabaysaa raxma goortii hadalkaasi maqasho aad bay ugu farxday wayna ka aqbashay isla maalinkiina wuxuu u soo kaxeeyey guriga goortii ay raxma guriga soo gaartana maamadii ayaa soo dhoweysay aad bayna ugu farxday waxayna tiri gabadhaydii soo dhowow weliba salaan diiran ayayna ku soo dhoweysay waxayna sidaasoo kale u raacisay waxay tiri gabadhaydii aniga waxaan ka imid halkaasi dalka Sweden halkanna waxaan u imid inaan xilliga fasax ku qaato kadibna aan ka tago raxma aad bay ugu farxday maamadana sida diiran ay u soo dhoweysay iyo weliba habdhaqankeeda wanaagsan kadibna waxay ku tiri waa maasan tahay maama soo dhowow waana kaaga mahadcelinayaa soo dhowaanta wanaad ii samaysay anigana waxaan kula dhaqmi doonaa si wanaagsan raxma maalmihii xiga waxay bilowday si wanaagsan inay ula dhaqdo maamadii sidaasoo kale amaradeedan ay raacdo gurgo idilna waa ay nadiifi jirtay alaabahana meel uguma aysan tabi jirin maamadii dhashay John gabadhani aad bay ula dhacday waa ayna la yaabtay sida howlkarka ay u shaqaynayso su'aalo badan ayayna maskaxda isweydiinayso ahayd gabadhan halkay ka timid weliba siday dadku xushmaynaysay howlkarka ay u qabanayso 2 bil markii ay ka soo wareegatay maalin maalmaha ka mid ayuu waxay go'aansatay maamadii John dhashay inay gabadhan wax badan ay ka ogaato xilli galaba ayayna u yeertay waxayna tiri gabadhaydii soo dhowow aad baan ugu faraxsanahay la joogitaankaada waxaana doonayaa inaad wax yar iiga sheegtay warbixintaada iyo weliba meesha ka timid raxma kama haysa labalabeen waxayna tiri hooyo macaan aniga waxaan ku dhashay magaalo ka fog magaalada Akrana waxaan u imid inaan jaamacaddayda aan ka sii wato kadibna waxay tiri maamadii taas waa arrin wanaagsan gabadhaydii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga wax xiriira ma leedahay kadibna waxa ay tiri raxma maya habar macaan aniga wax xiriira ma lihi horena umaana soo guursan kadib maamadii ayaa mar kale tiri laakiin sidee macquul ku tahay gabar sidaan u qurux badan inaysa ilaa xilligan aysan xiriir lahayn oo xitaa aysan soo guursan taasi macquul miya raxmana waxa ay tiri haawir sababtoo aniga muhiimaddeeda aan u imid meeshaani waxay ahayd inaan waxbarasho aan wado anigana hore umaana soo guursan maamadii waa ay la yaabtay gabadhani weliba quruxdeeda iyo howlkarnimadeeda waxayna tiri taas waa arrin wanaagsan meeshii ayayna ku sheekaysteen waxayna ka hadleen waxyaabihii hore u dhacay raxma laakiin ma aysan ku xusin xiriirkeedii hore ee kala dhexeeyay Dixon oo habararteedu ma aysan sheegin maskaxdeedana waa ay ka saartay mana doonin mar kale inay dib u soo xasuusato maamadii dhashay John gabadhani aad bay ula dhacday habdhaqankeeda wanaagsan ixtiraamkeeda howlkarkeeda iyo weliba siday u shaqaynayso iyo siday warbixinta uga sheegayso bal waxayaan dib ugu laabana John waxa uu ku dhashay dalka Ghana goortii uu soo yaro weynaadana waxaa loo diray halkaasi dalka Sweden si uu halkaas ugu soo barto cilmiga caafimaadka sidaasoo kale aabihiisa waxa uu leeyahay isbitaallo waaweyn oo bareefada kuwaasoo ku yaala dalka Ghana halkaas ayuuna hadda ka shaqeeyaa wuxuuna maamulaa qaar ka mid ah isbitaallada sidaasoo kale John wuxuu maskaxda ku hayaa hooyadiis inay ku riyoonayso inay mar un ay aragto isagoo guursaday weliba guursaday xaas aad u wanaagsan laakiin aad bay u adag tahay in la helo gabar wanaagsan habeenada ka mid a waxaa sheekaystay John iyo weliba hooyadiisa kadibna waxay tiri wiilkaygii waxaan rabaa inaan kaala hadlo arrin ku saabsan raxma sababtoo waxaan arkay gabadhaas inay tahay gabar aad u wanaagsan sidaasoo kale howlgar waa si ayaa u aragtaa haddii xaaskaada ay noqoto kadibna waxa uu yidhi John hooyo waxaan u malaynayaa gabadhaasi in muhiimaddeeda keliya ay tahay inay hesho hantideyda oo aniga aysan doonin arrinkaas ayaana ka baqayaa kadibna maamadii ayaa waxay tiri maya wiilkaygiiow gabadhani markaan arkay waa gabar wanaagsan waana fahmay mana rabta sidaasoo kale wax la xidhiidha hantidaada marka waan ku baryayaa gabadhaasi war waa inaad ka keentaa kadibna waxa uu yidhi maya hooyo macaan aniga arrinkaas way u adag tahay oo adiga ayaan kuu daayey teeda kale wiilkay baan hore kugu sheego oo waxaan ka ilmaamay gabadhaasi inaysan hore u soo guursan kadibna John aad buu ugu farxay laakiin wuxuu yidhi hooyo adiga markuu horeysa la hadal sababtoo aniga waan ka cabsanayaa waana gabadhaydii ugu horreysay haddii hooyo adiga aad ii soo dhammaynaysidna waa arrin ka wanaagsan kadibna maamadii waxay tiri wiilkaygu taas ha ka welwelin aniga ayaan arrinkaasi iyada kala hadlayaa jawaab culusna kaaga keenaya wiilkaygiiow sidaasoo kale John hooyadiis waxa uu ku yidhi hooyo macaan waxaan rabaa inaan arrin kuu sheego arrinkaasna wax kale ma ahan aniga raxmo waaba jeclaaday oo hore ayaan u jeclaaday waxayna noqotay jaceylkii ugu horreeyey
waana ka xishoonaya inaan arrinkaasi aan kula wadaago, laakiin hadda haddaad ila timid waa arrin wanaagsan. Kadibna habeenkaasi maamadii markii wiilkeeda macsalaamaysay, habeenkii xigay waxay u tagtay Raxma, waxayna tiri gabadhaydii waxaan doonayaa inaan arrinkaa la hadlo. Kadibna Raxma waxay tiri okay maama soo dhawow, maxaan doonaysaa inaad igala hashid? Maamadii ayaana waxay ku soo jeestay Raxma waxayna tiri gabadhaydii wax kala baahan, John ayaa adiga ku jeclaaday, waa uuna kaa helay, marka sidee ayaad u aragtaa? Soo dhaweynaysaa mise waad iska daynaysaa? Raxma goortii sidaas la yidhi aad bay u baqday, sababtoo waxay soo xasuustay wixii ayadii hore ugu dhacay, weliba Digson uu ku sameeyey. Kadibna waxay tiri waan ka soo fakarayaa. Maamadii waa ay la yaabtay oo waxay sugaysay gabadha inay hore ay ka aqbalayso, laakiin waxay tiri okay gabadhaydii waqtigaada qaado. 2 asbuuc markii ay ka soo wareegatay, weli maamadii John dhashay waxay sugaysaa jawaabta ay ka soo saaraysa Raxma, laakiin ilaa hadda wax jawaab ma aysan siin. Kadibna maamadii John waxay la kulantay wiilkeeda John ayaana wuxuu ku yidhi hooyo macaan maxaa dhacay? Ilaa haddana gabadha maxay u soo jawaabi leedahay oo jawaabna si leedahay? Kadibna maamadii ayaa waxay ku tiri gabadha waa inaad waqti siisaa, weliba maadaama gabadhan aysan hore u soo guursan. Kadibna waxa uu ku yidhi okay. Maamadii ayaana mar kale waxay tiri wiilkeygiyow, waxaan kaa rabaa gabadha inaad adiga u tagtid oo aad la hadashid una sheegatid jaceylkaaga. Maalin maalmaha ka mid ah, John wuxuu ka soo laabtay shaqada, horena wuxuu u soo qaatay ubaxaas ayuuna wuxuu doonaya inuu ayada siiyo. Wuxuuna qolka ugu soo galay iyada iyo weliba hooyad oo wada fadhiya, kadibna u soo dhowaaday wuu u jalbajabsaday. Waxa uuna dhahay Raxma, weliba isagoo hadal dabacsan kula hadlaya, Raxma waxaan doonayaa maanta inaan qalbiga kaala hadlo, aniga waan ku jeclahay, waxaana ka helay sida wanaagsan aad hooyadii u daryeelaysid, sidaa darteedna aniga waan ku jeclaaday. Teeda kale waxaa tahay jaceylkay ugu horreeyey, waxaana tahay gabadhii ugu horreysa aan jaceylkayga u soo bandhigto, marka waan ku baryayaa jaceylkayga aqbal, si qoto dheer ayaana ku jeclahay. Raxma hal mar ayay oysay iyadoo naxsan, kadibna meeshii ayay ka carartay oo qolka ayay gashay oo waxay ka tagtay meeshii ay joogeen John iyo hooyadiisa. Goortii ay qolka gashay aad baa iyada u murugaysan ayay daqiiqado kadib ka soo laabatay, waxayna dib ugu soo laabatay John, habayayna siisay jaceylka ayana ka aqbashay. Maamadii aad bay ugu faraxday. Asbuuc markay ka soo wareegatay, maamadii waxay doonaysay inay dib ugu laabato halkaas iyo dalka Sweden si ay halkaas waqtigeeda ugu qaadato. Go'aanna waxay ku gaartay Raxma inay halkaas u kaxayso. Nasiib wanaagsan way ku guulaysatay. Raxmana waxa ay ka dejisay halkaas iyo dalka Sweden oo waxay doonaysay inay halkaas waxbarasho ku soo barato. Teeda kale asxaabay ma ogtiin, dadka doonaya inay noloshaada burburiyaan ayaa mararka qaar waxa ay ku horseedaan waddadaada guusha. Aan sheekadeenna sii wadnay Raxma goortii ay ka tagtay dalkaas iyo dalka Sweden, waxa ay sawir ku gashay eelaboorka, kadibna staatuska ayay soo saaratay. Waxaana sawirkaasi arkay walaasheeda Abigail, waayna la yaabtay waxayna istiri sidee macquul ku tahay, sideena Raxma halkaasi ku aaday. Kadibna hoos ayay commentiga waxay ugu soo qortay waa xagga halkee ayaana joogtaa, waxayna tiri waxaan joogaa dalka Sweden waxaana ka baranayaa cilmiga caafimaadka. Abigail arrinkaasi la yaab ayuu ku noqday. 2 bil markay ka soo wareegatana, mid ka mid a ganacsatadii la shaqaynayay Digson ayaa arrinkiisa kala laabtay, wuxuuna u sheegay inuu mar dambe la shaqay doonin Digson. Digsonna halkaas waxaa ku soo gaaray dhaawac fara badan oo ganacsigiisa ayaa hoos u dhacay. Intaa kadib, Digson wuxuu hore u qorsheynayay inuu aado halkaasi dalka Maraykanka, isaga iyo weliba Abigail. Goortii eelaboorkii ay soo gaareen ayaa waxaa qabtay mid ka mid a askarta, waxayna dhaheen macquul maahan inaad baxdeen, sababtoo mid ka mid a boorsooyinkiin ayaa waxaa laga helay daroogooyin, marka macquul maahan inaad tagteen. Labadoodina waa la xiray si ayaga baaritaan loogu sameeyo, laakiin waxa ay dhaheen sidaasi macquul maahan. Digsonna wuxuu dhahay sidee taasi macquul ku tahay? Abigailna taas waxay la yaabtay, waxay tiri si halkaani daroogo lagu keeni karaa boorsooyinkana lagu soo geli karaa, laakiin booliska hadalkooda ma aysan dhegaysan. Isla markiina waxaa la bilaabay labadooda in la xiro si ayaga baaritaan loogu sameeyo. Kadibna askar qaar ka mid ayaa waxaa loo diray guriga Digson si ay baaritaan ugu sameeyaan. Ugu dambeynna waxay guriga Digson ay ka soo heleen qaar ka mid a daroogooyinka ay mamnuuc tahay in dibadda loo oofiyo ama waddanka la soo geliyo. Sidaa darteedna labadooda waxaa la soo istaajiyey maxkamadda. Digson goortii maxkamadda la keeno wuxuu qabsaday qareenkii laakiin waa uu ku guuldaraystay. Kadibna Abigail waxaa lagu xukumay 10 sano oo xariga, sidaasoo kalena Digson waxaa lagu xukumay 15 sano oo xariga. Abigail aad bay isagoysay, sidaasoo kale Sam ayay arrinka maqlay, kadibna xabsiga ayuu wuxuu ku soo booqday gabadhiisa, wuxuuna dhahay gabadhaydii sidee wax u jiraan. Waxayna tiri aabba macaan, waxaan kuu sheegayaa arrin, weliba waxaan kaa rabaa inaad u tagtid Raxma, aadna ii soo weydiisay raaligelin. Kadibna aabbihii waa la yaab, wuxuu yidhi gabadhaydii maxaa dhacay ii sheeg. Abigailna waxay u sharaxday wax walbo ay Raxma ku sameeyeen. Aabbihiina isagoo murugaysanayo xabsiga ka soo tegay, xaaskiisa oo guriga joogta ayuu u yimid. Waxa uuna bilaabay horteeda wax walba inuu ugu caddeeyo, iyo weliba sida xaqiiqada ay u gashay gabadhii masaakiinta ahayd iyada loo soo diray si ay wax u barto.
wuxuuna sidaas oo kale u raaciyay inay halkan ay ka tagto dibna ugu laabato magaaladii ay ka timid weliba xaafadii baadiye ahayd. Abigail markii maqasho aad bay u murugootay, waxayna ka murugootay waxa iyada ay samaysay gabadhaasi cuqubada ay ka gashay maantana ay ku nooshahay halkaasi dalka Sweden, halka iyada keligeed maanta ay dib ugu laabanayso xaafadda. Sidoo kale asxaabi waxaan horeen kaga inoo inay sheego Raxmo hooyadeeda waxaa loo diray halkaasi dalka Sweden. Raxmana waxay halkaasi kula nooshahay hooyadeeda oo waqti ay kula qaadanaysay sidaas oo kale maamadii ay dhashay John. Raxma waxbarashada ayay bilowday waxayna baranaysay cilmiga caafimaadka. Sanado kadibna waxa ay noqotay dhigtorayso waxayna ka shaqo bilowday halkaasi dalka Sweden. Weliba waxay u dhaxaysay Ghana iyo weliba Sweden oo mararka qaarna waxay soo booqanayeen Ghana, mar kalena waxay dib ugu laabanayeen halkaasi Sweden. Sidaas oo kale Raxma iyo weliba John waxay isku dhaleen 3 caruur ah oo way isguursadeen. 3 caruurna waxay ahaayeen 2 gabdhood iyo 1 wiil. Raxma waxa ay ku noolaatay nololtii quruxda badneed iyadoo og inay soo martay dhibaatooyin fara badan, haddana nolol fiican waxay ka heshay John. Saxaabay sheekadeena halkaas ayay ku soo dhammaanaysaa. Cashirkan ka baran karno sheekadanna waxay tahay adduunyada waxaad maraysaa dhibaatooyin fara badan, laakiin waxa laga baahan yahay dulqaad. Dadka qaar ayaa waxaad u malaynaysaa inay noloshaada burburinayaan, laakiin ayaga ayaa waxay ku tusayaan waddadii bulsho aad ku gaari lahayd. Asxaabay balaadukana fikirkiina koonti nagula wadaaga, muuqaalkana like badan saarno, asxaabtiina aan la share garayno. waa walaalkiina barqadan leh qisadan iyo qisada noo xigtay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.